هذا حنوصلي كيو كلا تايا عاو كويستا حتى هذا شمك كيو كلا أياد ليه هاي معناها وهورين إيا كوح وحنا كلا هايستا كوح إيا هورين من ما عرفتي حسبيجيس أيا كسودوي واي شعبك وكل لانوي واي شعبك وقدود واي شعبك استاج واي واسيلو كويشن هافنا الانسر سؤال شادي ويدينيس سؤال حمد جواب مري صاحب فلان فرقيتو هردada ka kacban kuleey taaniyan waa ka bitaarka gobolada dhexe iyo waqooyiga isku xirta hiiraan waa qaali meel qaali ay ku taala saaxib annaga dhan baa wada eeganayna nabad markay hiiraan tahay natiijo ayaa noo soo kordhaysa way ka qaalisan tahay saaxiibeen ku sheegi ma eelbuur way ka qaalisan tahay kismaayo way ka qaalisan tahay jirib way ka qaalisan tahay jubada dhexe jubada hoose way ka qaalisan tahay kulligoodana waxa ugu qaalisan hiiraan capital bay ku taal saaxiib waana laga hadlayaa dhibaatada ku soo korodha waa maxay indhaynu ku wada haynaa waana ka wada xanuunsanaynaa inuu caawa maxay Muuse Moosile oo xasuuqo mar labaad oo u geysta ayaynu kaga digaynaa reer hiiraan waa inay gadoodaan odayaalka reer hiiraan una istaagaan aniga baa saaxiib nafar dudublan kaga jooga adinkaa 3 iyo 4 qolka ku jooga lain kagama badno qolka saaxiib qolkuna qabiil ma aha qof waliba fikirkiisa ku hadlaya qof waliba fikirkiisa ayuu u soo galay kana hadlaya waana qasab in hiiraan laga hadlo because maalin walba xamar baynu ka hadlaa oo qad iyo qamaam weyn oo dhan iskugu timaaday oo bere iyo baaska ka wada ayaynu ka hadalnaa barsa hadana qabiil baynu u saarina oo aynu leenahay xamar waxa iskale abgaar isma taas ogow ayadana farta lagu fiiqaya yaa u badan yaa majority ka hiiraan xawaadle muxuu uga kici waayay maxayse u xasuusan waayeen 70kii nus saac dhexdooda looga xasuuqay waay mar labaad ee hadana muxuu u yimaado Muuse Moosile inuu mar labaad hadana xasuuqo maxaad qabiil ugu meeraysanaysaa mursada waa walaalkay haduu u haysto yaa mursada ka hadlay Muuse Moosile inuu ka hadlo saaxiib Muuse Moosile iyo wixii calaqad ku wada dhibaato ku wada wadankeena Soomaaliyeed dhagta ayaynu dhiga u daraynaa waana ka wada hadlaynaa meel kasta uu joogo waxaynu ka hadlaa Xasan Tuke waxaynu ka hadlaa Godani waxaynu ka hadlaa qadqad iyo qamaamo waxaynu ka hadalnaa ninka la yiraahdo muxuu kii raxweynka ahaa Xasan Yaaqub gabdhaha dhagaxa ku dilaya 13 jir aan wali la guursan wiilasha yaryar ee 18 sano aan gaarin gacmaha iyo lugaha iyo hilibkooda la jarayo waynu ka hadalnaa waa qasab inaynu ka hadalno Muuse Moosile saaxiib qasab way qabiilna ma ahan qabiil ahaanna uma hajuumayno oran mayno maanta hiiraan waxa haysta mursade naba mursade dhul buu leeyahay dhul buu la degaa raalina kama ahan Muuse Moosile dhibaatada qofka oo u dhigaya reer hiiraan waynu ka wada hadlaynaa midda kale annaga dhan baa wada fiirsanayna saan caasimada capitalka Soomaaliya aan u fiirsanayno ayaan hiiraan u fiirsanayna saaxiib hiiraan haday nabad tahay saaxiib annagana nabad baynu noqonaynaa sababtoo waa marinka isku xira xamar illa hargeysataa ogow dhagahaagana fura saaxiib salaam calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Umar Xaashi aadanna mar walba waan xasuustaa haddaan jiifa iyo haddaan taaganahay iyo haddaan socdo nin taariikh nagu leh weeyaan waan xusaynaa saaxiib hadin meeytada soo faagi waan u duceynayaa ma caynayo laakiin midkii ku caynaya kufaarka dhahayay haddana caawa mar labaad dhibaato kale kula maagan ayaa garab iga siinaysa aniga iyo asaga keebaa wanaagsan anu waan ka xanuunsanayaa dhibaatadii Umar Xaashi aadan iyo reer hiiraan cuqaashooda loo geystay baro ina adeer gacaliso waxyaabaha aan ka hadlayo iyo meesha hadalkay ama warankaygu u socdo حبها حناقين ترتيب تاضين هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.